قدومي هراء أحمد عبدي قدومي عبد الرحمن أقاسمه يقول هراء جامعة العلمي يو أقاسمها وعن تعالى هنا نكفرنا حفلتنا على القرآن والأخير شيخ داود الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بعض وناكسن xubnaha boorka bangiga madaxda cusub ee banka Soomaaliland wariyaasha ka socda hay'adaha kala duwan dhammaan saraakiisha xarunta banka
iyo maamulayaasha laamaha gobollada ee bangiga Somaliland dhammaan shaqaalaha banka waxaan iga guddoontaan marka hore salaan qiimo badan iyadoo maanta aynu isugu nimid oy bishu tahay 1dii bishii 6aad 1997 imaantinkeenna aynu maanta isu nimidna uu yahay munaasabadda xil wareejinta guud ee banka Somaliland oo aanu halkan ugu soo diyaar garownay in lagu wareejiyo guddoomiyaha cusub iyo agaasimaha guud ee banka waxaan jecelahay inaan xog waran gaaban idinka siiyo shaqada iyo shaqaalaha banka Somaliland iyadoo wixii waxqabadkii bangiga muddada maamulka aanu wadnay iyo intii naga horreysayba uu gacanta ku hayay guddoomiyaha hore waa hadda inoo gunaanadii doona ha dhowto warbixinta isaguna ku dambayn doona ku soo dhoweyn saraakiishii iyo shaqaalaha bangiga ay maanta halkan goobta xil wareejinta ay maanta xaadir ku yihiin iyadoo ay nasiib wanaag noo tahay in maanta aanu xilka ku wareejinayno bahdii bangiga ka shaqayn jirtay iyadoo uu hormood u yahay guddoomiyaha cusub cabdiraxmaan ducaale oo runtii ahaa aasaasayaashii bangiga yani haddii qofku hay-ad kale ka yimaado hawsha iyo inta ayna hor fadhida intoodaba waxaad u welweli kartaa ood odhan kartaa talo maxay soo bixi kartaa laakiin waxaa yara nasiib wanaagno waa inaanu faamligii bangiga ama bahbaanu idhaahnaa banka aanu nahay inaanu saraakiishiisii ku wareejinayna maanta haddii aan waxooga idinka siiyo dhinaca shaqada iyo shaqa maanta iyadoo yani taariikhda ummaddu sheegi doonto qof walibaa runtii wuxuu qabtay odhan maayo waxaasaanu qabanay laakiin bini aadamku waxa weeye iyadaa taariikhdu eegi doonta ama ka marag furi qof waliba ummadda wuxuu u qabto mase ahayn ku faano qof waxaa jira oo aanu maanta idinku wareejinaynaa bangiga oo ka kooban saylac markaad ka soo bilowdo ilaa iyo laascaanood laamaha bangiga guud ahaan inta shaqaysa waxa weeye 10 laamood 10 laamood marka le waxaan uga jeedaa waxa weeye 6 laamood oo xarumaha gobollada ku yaala iyo degmooyinka iyo 4 airportska macaka Hargeysa oo nuwigan hawshiisa waa dhamaatay dhismuhu laakiin furitaankii airportkuna aan la sugayno 10 laamood baa shaqeeya marka lagu daro 4 airport waxa kale oo iyaguna maamulkoodii u magacaaban yahay maamulayaashoodii magacaaban yihiin oo hawlgalkiinay gobollada uu doonayay inay la dhaqaaqaan markii hawlaha gobolladu dhaqaaqaan 6 laamood laascaanood iyo badan intaba maamulayaashu weydii magacaaban yihiin waxaa kaloo jira shaqaale kusii magacaaban oo ilaalinta laamaha ilaaliya wixii dhiba ka ilaaliyo gargaarayaal oo idin jooga haddii laga tego waa laanta burco maamulihii ku qoraa wuu geeriyooday allah u naxariisto ninkaasi laantiisii isaga magacaabidiisu markii hawshu dhaqaaqdo weydii bannaanta waxaan halkan run ahaantii hortiina ku caddaynayaa maadaama maanta aanu xil wareejintii idinku wareejinayno bangiga inaanu idinku wareejinayno bangi dhinaca disciplineka iyo dhinac shaqaale saraakiil iyo institution ahaanba runtii dhisan taasoo ka arki kartaan shalay galabtii markii aynu amar siinay inuu soo gala laan waliba xisaab xidhkaagii keen waa kuwa saraakiishii laamuhu idin hor fadhiya institution waxa muhiima qof kastaa ha wado ama ha yimaado inuu isku xidhan yahay waa dhaqaaqa keliya ee cajaladaasi haddaan institutionku isku xidhnayn ama dhaqaaq karaa waxay naga dib inooga dhacday laantii berbere oo keliya oo iyaduna 7 saaka soo baxday taasi waxay muujinaysaa institutionka bahda idinka soo horjeeda siday isugu xidhan tahay ee hawsheedu u midaysan tahay
sidaa qoladii ugu noqdo 198 shaqaalaha ayay dib u wareejiyeen intaa waxaa ii raaca iyadoo aan ku socdiyo annaan dhinaca maamulkii iyo shaqaalaha inuu ku ekaado waxaad leeyahay ku soo dhowaada xilka iyadoo aanu filayno idinku rajo weyne maadaama rugcadaagii bangiga aad tihiin inuu bangigu halkaa hore uga sii socdo ayaanu ilaahayna idinka baryaynaa idinkana maadaama aanu idin ognahay aqoontiinnii iyo waayo aragnimadiinnii aanaan welwel ka qabin aanu idin leenahay ku soo dhowaada imikana waxaan ku soo dhoweyn doonaa guddoomiyihii hore bangiga jaamac ayaa warbixintii dhameeyey waxaan anigu in yar ku darayaa baankan in uu furmay laamihii ugu horreeyey markii laga soo noqday shirkii boorama ha yeeshee waxqabad badan lama qaban muddadaa ilaa iyo markii lacagta somalilan ay timid oo ahayd waktigii ugu horreeyey 20kii bishii Oktoobar